safiirka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya fadhiya dalka Taiwan Ambassador Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud ayaa shir la yeeshay shirkadaha ganacsi ee dalka Taiwan waxa uuna ku dhiirigeliyay fursadaha maalgashi ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Taiwan Ambassador Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyay munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen shirkadahaasi ganacsi ee dalka Taiwan ayaa waxa uu safiirku ka sheekeeyay fursadaha ganacsi ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaabaha kala duwan ee ay uga faa'iideysan karaan dalkaasi Taiwan. safiirka oo ka hadlayay shir uu la yeeshay shirkadaha ganacsi ayaa waxa uu yiri muhiimadda shirkani waxa ay tahay in la gorfeeyo sidii Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahayd fursadaha ganacsi isla markaana ay albaabada ugu furi lahaayeen kala faa'iideysi dhammaystiran oo waxtar u leh dhinacyo badan sida farsamada injineerka, dhismaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. maanta dunidu waxa ay kala horumartay sida ay u kala wax soo saar badan tahay iyo sida ay uga faa'iideysato fursadaha dhaqaalaha. waxaa jira fursado badan oo ganacsi oo dalkayga ka jira kuwaasi oo muhiim ah in si wadajir looga faa'iideysto. Soomaaliland waxa ay diyaar u tahay in ay martigeliso nooc kasta oo maalgashi iyo ganacsi iyo ka faa'iideysiga fursadaha ganacsi gaar ahaan dhanka warshadaha oo ay Soomaaliland kaga faa'iideysan karto horumarka warshadaha ee ka jira Taiwan iyo dhanka tiknoolajiyadaba. safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Taiwan Ambassador Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud ayaa muddooyinka u dambeeyay waxa uu dadaalo fara badan oo uu ku dhiirigelinayo ganacsatada shisheeye ee dalka Taiwan iyo waliba ajaanibka kale ee caalamka sidii uu u tusi lahaa fursadaha ganacsi ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Hargeysa.